بسم الله waxaan doonayaa insha Allah ta'ala bi'in Allah al-kareem wax yar oo tala bixin ah inaan soo jeediyo macnaha oo ku saabsan habka korontada loo isticmaalo iyo sida la isaga waardiyo qataraheeda marka waa arin yar ama tala bixin yar oo ugu tala galnay macaamiisheena sharafta leh insha Allah ta'ala waxay ku saabsanaan doontaa habka loogu tala galay macnaha in korontada loo isticmaalo أولاً qofku marka uu guriga korontada gashanayo waxa loo baahan yahay inta uusan korontada soo galin gurigiisa habka installation-ka ama imbiyatada Soomaalidu u taqaano qaybkay u samaysan tahay ma sidii saxda ahayda ma soo waa la iska galiyay fiilada loogu tala galay ama waayarka loogu tala galay guriga in la galiyo ma tahay tii compatible ku ahayd ama ku hagaagsaneed ama ku toosneed ama ba isticmaalka guriga markii la fiiriyo ku habooneed ma tahay markii uu taas xaqiijiyo oo uu gurigiisa si sax ah u dhigo maaragtay installation-kiisa ama waayarka uu u dhigo waxa uu qofkii sameeynaya in uu koronto la yimaado koronto uu dalbado oo guriga koronto loo soo galiyo sidaa darteed korontada markii la galinayo qaabka isticmaalaysa waayarka isticmaalaysa waa nooce hadba waxa ay ku xiran tahay isticmaalka gurigaagu inta uu leeg yahay hadii uu guri weyn oo dabaqa yahay ama villa uu yahay adiga waxaad isticmaalaysaa fiilo u dhaxaysa villa markii la dhaho waa 25 mm ilaa 16 iyo wixii la mid ah 25 ilaa 16 fiilo ah ayaad isticmaalaysaa markuu gurigu dabaq yahay waa 50 70 ilaa wixii la mid ah mm ayuu qofku isticmaalayaa sida darteed waxa loo baahan yahay marka fiilooyinka aad isticmaalayso dabaq xataa haduu yahay ilaa 180 xataa qofku uu isticmaali kara laanahu dabaqada ruuxooda ayaan waxay isku hayn isku culays waxa laga yaabaa gurigii in ku kar air conditioner waxyaabo noocaas la isticmaalo marka hadba waxa aad fiirinay culayska qofku isticmaalo ayaa adoo la fiirinayo mideeda kale waxa laga yaabaa qofkii marka in la yiraahdo fiilada noocaas keenso ee uu yiraahdo war heeda tan oo kale waligeey isticmaali jiray ayada iikan macaamil kuma haboona qofka farsamo yaqaanka ee yaqaano waxa in aad uga dambaysa ayaa wanaagsan ee kuma haboona inaad tiraahdo tii aniga aan rabo hal ii galiyo waxay keenaysaa in qalabkaagu dhibaato ku timaado ama naftaada aad ku haligto biri oo laga yaabo in qofkii qoyskaaga dhibaato ka soo gaarto marka dadka ku gelinayo korontada la tasho dad aqoon leh oo wixii yaqaana oo maaragtay adana aamin ah wixii kala tasho tan labaad korontada guriga markii la soo geliyo awalan waxay u baahan tahay switch wax la yiraahdo ama furahaas marka muxuu ka ilaalinayaa hadii cilada gurigaada ka dhacdo in uu aysan korontadii kugu sii deyn oo ciladii aysan ku faafin guriga inuu isla markiiba ka gooyo waxaan kale oo ku darayaa qofku marka uu furo soo gato oo guriga isticmaalayo guriga loadkiisa ama culayskiisa iyo furaha waa in ay iswaafaqsan yihiin kaba soo qaad gurigaagu marka uu 10 ambeer yahay hadaad furo 30 ambeer xirato waxa waaye waxba kaama damin karo sababtoo ilaa 30 kaas ambeer oo culaysku gaaro furuhu ma damayo waxa imaanaysa marka cilad in ay dhacdo ciladiina ay halkaas ku sii faafto ilaa ambeerkii tiro badan gurigaaga haduu ambeer badan lahaan lahay ambeerkiina uu saaran yahay furuhuna culayskiisa oo gaaray ciladu timaado isla markaa asagu markaas buwaaba oo buuxaba ma ogola wax kale inay yimaadaan hore iska damina laakiin hadaadan waxba isticmaalin oo aad charger iyo laba nal iyo wax la mid aad isticmaalayso furo 30 ambeerana aad xirato ama 20 ambeer aad xirato waa u dhamaatay waxa waaye macnaha meeshaas ciladii ka timaada cayoon furihii madamayo ilaa culays ma basaara culayska saarnaana ciladu noqdo ciladaas marka waxay imaanaysaa in ilaa ay gaarto 20 ambeer inaysan furihii u isdamin ama 30 ambeer ay gaarto inuu furihii isdamin tan kale waxyaabo waxa jira bareysooyin ama dadka doobiye bareys ay isticmaalaan doobiye bareys marka la soo gado waxa waaye inta badan dabka looga tagaa dabka marka looga tago ama faraha laga macnaha looga tago waxa imaata in ilmo ku ciyaaran ama qof inta si qaldan u tuuro baashi ay gudaha iska qabsato gurigina ciladii saas ugu faafto marka ayadana alla iska ilaalisho
gurigaaga marka aad ka baxaysid fadlan baawarka dhan iska dami waa markaad ka baxayso wax isticmaal kugu socon iska dami baawarka dhan maxaa ka ilaalin kara wixii cilada oo ka difaaci kara inuu ku tala galo oo macnaha uu qofkii is yiraahdo arintaas ayada ah oo ku baraarugsanaado kalana tashto qofka u galinaya shaqadaas u qabanaya بالمثل waxaad isticmaalaysaa bareysooyin air conditioner waxyaabo la mida waxa laga yaabaa marka inaad maanta inta shay aad isticmaasho shaygii cilada ay ka dhacdo furuuha hadoosan ciladaas ka damin karin runtii waxa waay waa halis marka qofkii wuxuu sameeynaa furo iska shulshulay ama tijaariya oo iska soo gadana wuxuu leeyahay haye al-igeliyo oo isticmaalaya birina waxa laga yaabaa inuusan waxba ka cilin ama ba asiga ruuxiisa oo cilad gudaha uga dhacdo oo uusan waxba ka cilin guriga dhibaato ku noqoto tan saddexaad waxa weeyaan guriga markaad isticmaalayso qalabkaaga haddii uusan markaas aadan lahayn dadka waxa laga yaabaa inay korontadii kala baqiilaan wax walba oo isticmaalayso waa inaad ku tala gashaa culayska ay leeyihiin iyo waayarkaagu ma isticmaali karaa qofka wuxuu sameeysanaa marka hore fiilo soo gadanaya fiilad aan loogu tala guriga ugu tala galay qalab kale oo gadaal kala imaanaya oo san fiiladii loogu tala galay markii hore la soo galiyo guriga aysan qaadin barnaamijka qofkii guriga waa ijaartay ama waa uu soo degay ama wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiis waxba u helay qalab uu isticmaalay qalabkii ma uu ku tala galin fiiladii hore uu soo galiyay in ay qalabkan qaadi karto iyo in kale waxa laga yaabaa fiiladiiba inay dhalaasho markuu isticmaalo ee uu yiraahdo korontadiina ayaa halaysan taasna waxa waaye waxyaabo badan oo macnaha annagana soo wajahoon aragnay kamid tahay sida darteed waxaan rajaynaynaa in aad nala qaadataan talooyinkaas guryuhu isku mid maaha guryo waa sida aan soo sheegno waa dabaqyo iyo villooyin iyo wax la mid ah tan kale markaan ka soo tago guryaha jiingadaha oo kale waxa waaye dhibaato badan ayaga ka taagan awalan waxa waaye fiilada waa la iska soo qaadaa guriga la isaga xiray laamiyerigi meel ka qabsanay musbaara ku dhagaya sida darteed waxa loo baahan yahay qofku inuu ku tala galo in waxaanu wax dhibaato keeni kara ay yihiin sida darteed waxa la rabaa tubooyin ayaa la dhex maranayaa fiilooyinkaas marka jiingadii fiiladaas meelna ka taaban mayso tubadii waa plastic haddii ciladu xataa dhacdo waxa laga yaabaa inay iyadu ku ekaato oo aysan gudbinaysan laamiyeri qabsan marka baybiskaas la marinaya waxa la isticmaalayaa marka bareysooyinka ugu fiican ee loo isticmaalayo guryahaas ama furayaasha loo isticmaalayo jiingadaha waxa weeyaan kuwa loo yaqaan UK-da furayaasha UK-da ama bareysooyinka UK-da ayaa ku wanaagsan in ay isticmaalaan guryaha jiingadaha arintaas ayada ka taxadara annagana waxay noo tahay dadaalkeeno mira dhala adinkana waa badbaadadiina والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته